عقاشة salaadiinta waayeelka iyo dhalinyarada ka soo jeeda koonfurta iyo bariga gobolka Sanaag ayaa kulanay hotel Ugbaad ee magaalada Ceergaabo isugu yimaadeen waxay si weyn u taageereen muddo kordhinta golaha guurtida Soomaaliland u sameysay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo golaha wakiilada munaasabadan lagu taageerayay muddo kordhinta labada sano ku dhow ee golaha guurtida u kordhisay xukuumadda ayaa waxa ka soo qayb galay cuqaal salaadiin waayeel iyo dhalinyaro ka soo jeeda koonfurta iyo bariga gobolka Sanaag waxayna sidoo kale ugu baaqeen dadweynaha reer Ceergaabo in nabadgelyada la ilaasho iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa hadaladoodii kamid ahaa kan aan u qabanay gobolka Sanaag degmada Ceergaabo waa beesha harti oo ku dhan baaqinaan halkan ka jeedino baaqaasoo laba qodob ah qodob waxa weeye waxaanu taageersanahay kordhinta muddada saddexda xusbi loo kordhiyay golaha guurtida ay gaadhay ee murankii ku soo afjartay taasaan horta raacsanahay waanu taageerin kii wax qabadka wuxuu ka soo wadaa dhinaca galbeedka muddadan hore waxay ku dhamaanaysaa iyadoo aan soo gaarin gobolada bari muddadan imika madaxweynaha loo kordhiyay waa muddadii madaxweynuhu wax ka qaban lahaa gobolada bari loo kordhin maayo yeeli mayno oo waliba dadkii ka dhalgay ka yeeli mayno shirka jiraayid waxaanu uga jeedaa oo u qabanay annagoo taageersan go'aankii golaha guurtidu ay gaadheen oo labada sannadood ay ugu kordhiyeen xukuumadda hadda jirta ee Axmed Maxamuud Siilaanyo madaxweynaha ka yahay baanu taageersanahay taasaanu shirka u qabanay waxaan taageeraynaa si xushmad iyo qadarin iyo maamuus leh waxaan u taageeraynaa go'aamadii ay golaha guurtidu ay gaadheen oo muddo kordhin ugu sameeyeen baarlamaanka iyo fulinta taas oo ah arrin waafaqsan sharciga dastuurka u yaala jamhuuriyadda Soomaaliland baaqan lagu taageerayo go'aankii guurtidu ay gaadhay go'aankaas oo ahaa in dawladda hadda jirta loo kordhiyay 2 sanadood waxaan leenahay haddaanu beesha hartinahay waa taageersanahay labadan ay muddo kordhintay sameysay dawladdu waxaanu taageeraynaa anagoo ah cuqaasha harti ee halka joogta waxaanu taageeraynaa mustambeedka oo ah muddo kordhinta ay guurtidu u sameeyeen xukuumadda hadda jirta iyadoo wax qabatay dalka aad wax uga qabatay waxaan dawladii hore la taageersanaa la ictiraafsanaanay qaban ayay ku dhaqaaqday go'aankii golaha guurtida ay soo saartay waanu taageero inaanu ku kalsoonaano inaanu ayidno inaanu diyaar u nahay aanu ku raacsanahay oo ku taageersanahay madaxweynaha inta loo kordhiyay aad iyo aad baanu ugu raacsanahay waxaanu leenahay Ceergaabo waa beelo nabadgelyada dab baa ugu jirta beel qura oo kaliya dan uguma jirto waa la garanayaa dhibaabihii iyo wixii soo maray hal la dhowro nabadgelyada Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Ceergaabo